اوكي واحد يقول ايدي كرتا هذا ما حد قبتين واجي كبعد هذا سويدي سؤال انا سويدي وده محان هيستوى وقبائل كي المركز ده اسكو سوتش كالنت عيدت كلها كوياش horta markii maxamed saad meesha laga saaray qabri daaro fadhiya kabishi ma garata markii aan bila sooyay markii uu baxay hal nus saac asoo sii maqan ayaan raadi muqdisho u tagay waraaw ninkii soo had ninkii operator ka fadhiyay nus saac uga sii maqan yahay wuxuu yiri كمان سيرش تنجارة ياه سيسار هي سكعانة سيسار بالك كيف أقول لي أفوين محمد سياد واي نكي أوبراتر كاميرا كانوا تجي يروح ورأوي مارك تاعر محمد سياد حتى نص ساعة كور وقت بوير كمان سيرش تنتجي سيسار بوير هي سكعان هي سكعان كسيسار وركمان سيرش تبتجي تك هالكاسو كهولو هلا مركا markaas anaguna saarnay heesooyin kale waaga baryay iyo bilacsan iyo tanaan saarnay tanaan meel walba laga maqlay iyo anoo dhahaya ninkii qaraabka ah meeshii waa laga eriyay marka adaa ka hadlay reedio musho anaa ka hadlay oo tiri ninka odayga waa loo erinay waa erinaan waay maxaa dhacay marka manifestad haydu barka miya aniga waxaan hayba male manifesto anaga horeysay manifesto groupki aadan cabdullaahi niman geesiyaal ayaan oo fogeeno jirqsanay oo fadhiya meesha inta u tagay yiri warnimo meesha waa hadlayda istiqaal iska dhiib oo iska nin dhihi kari waa yara konton nin ay ahaayeen anigu kuwaas sharaf bay lahaayeen kuma jirin waxa fiilkan ku jira markaas xabadaha la isaga bushbushsiinay in fact wuxuu amray markii horeba in lay dilo Borgan baa markuu noqday taliyaha militariga iyo wasiirka gaashaandhigga oo isku markuu magacaabay markaasuu warqad qoray wuxuu yiri jaal madaxweyne soo qaba galan wuxuu yiri waad weydo maxamuud Saleymaan alba iswaalo yiri ma jirteen ma dhahaye ma ogtahay wixii aan ku dhignana waad ogeyd isaaq ba iswaalo yiri oo kuwaas beerahaas amxaradu gowda ka saar hadda waxa iswaalayo yiri hawiye hawiyana labadooda la isku daro waa ka ashar badan yahay waanan ku dhex jirnaa calooshoodaan ku dhex jirnaa nimanka saraakiisha oo annaga hadda nala jira oo hawiye ah aan layno hadda nagama dadsana waa nala jiraan aan layno Morgan Baranaya Morgan Baranaya waay liiskii qoray marka kow aniga waay xaasada loo geeyay okay soo saaray maqribkii markay tahay ayaa la soo war guriga anoo iska jooga bogda farac dile ayaan ku baxsaday inta u tagay waxay yiraahdeen ninkii waa dilay waxa xuseen kulmiyo soo cararay mar dambe ayaa galabtaas u tagay maxamed siyaad soo meeshii ka fiiqay markaasuu yiri hadda adduunka waa baayo ninkii aan ragga ugu jeclayn oo galaha lahaa asagoo ciidan hawiya wata oo hawiya ciidan qabiil oo hawiya ergeyga oo nagu soo duulay ayaa la dilay markaas hal dilo kaanka ma kooriyo hal dilo aan erigu inuu gowraca ka baxo okay saas ku rumaystay laba maalmood ka bacdi aniga markii waa baxay kuwana dhex galay mid bood la dhihi jiray waxaas ayaan u tagay oo arreema timid iga qabahe xabaday gaartay diblomaasiya waa ka baxday iga qabahe ma hadla aada ugu yiro iskaga tagay maalintii labaad ayaa BBC waxay soo wacday kuwii USCda iska dhahay waxay lahayd saddex group ay ahaayeen kuwii maxamed awatay xadiid kuwa Rome dhahay iyo kuwa Ismaaciilka Sheekh oo madaxda ka ah Ismaaciil waa to inta xagga taga dhintay marka bood baa bedelay 9 bay ahaayeen 10 bay ahaayeen ninka 9kii kala jooga
mid ayagaas ka mid ahaayo gacma dheere leh oo Saleemaal ah ayaa BBC soo wacday markaasaa la ciidamadiina yaa madax u ah markaasuu General Galaal Maxamed Siyaad yaa General Galaal Morgan uu yiri wariya maxaad ii tiri gal ninkii waa dilay awalna aad tiri dil oo haddana aad soo xaqashin leedahay soo ka halka fadhiya markaasuu runbu sheegayso ma ninkaas kee kaalaha isaga madaxa ciidanka ha runbu sheegay waan fadhiya waa markaasuu yiri anagu nin la dhahaye Canjeex oo adeer u yahay Maxamed Siyaad oo garnisoonka dhan oo xamar madax u ah oo gaashan la urur taangeena haysta anagu Canjeex baan faru yiri amarkii wuxuu ii soo xaqiijiyay inuu dilay markaasuu Canjeex hadda la dilo Maxamed Siyaad hadda la dilo hadda askarta xumedna waa maqlaaya markiiba waa la hadleen waxa leeyahay abaa hoose baxso saacadeedii kale Nairobi uu joogay wata halkaas ninkaas odaga ahaa halkaas wax badan isku feer orodnay laakiin markii dambe balaaya waa iska aakhirkii waa isku kala kac waa lagu kala tegay aniga markii qabiil noqotay anigu waa ka baxay markaas waxaa jooga dawlad Umar Carta dawlad waxa yimid midii aad ka oo dhahayeen nimanka waa naga tashadeen 27 maalmood meydku horta magaalada Xamar qashan Xamar u yeelay iyada oo soo ortay markaas la 27 maalmood meydka aan duugno aan samayno maamul yar oo meydkaasna duuga dadkana kala fariisiya waxyaalo noocaas 27 bari ka bacdina aan soo yeerno jabaadii wixii maqnaa iyo wixii jiray meel kale jira marka horta barnaamijku saas waa Umar Cartaana wuxuu ka علي مهدي حوله لا حما اوغينه ninkan qabqablo weyn oo dawladeed ah dawlad yaqaan isagaana bahasha waday horta arintu saasay ku dhacday aniga markay ay noqotay qabiil iyo balaayo istiqaalan ka dhiibay oo asagati markaas way marka caydid inta soo dhax galay oo Umar Carta ku dhigay oo farcid looga furfuray oo waa dilaya maaragtay adigu balaaya timi Mareykan baa yimi jiru jaba yimi soo baatay balaaya timi waxay taagan tahay xad nuur galaalo imika Soomaaliland baa timi dad badan waxa laga yaabaa inay yaabaan oo ilaahan war ninkii galaalku meenu jarankii kuwii dadka leeyin jiray faqashta oo halka anu magacaabo ku hore ahayn marka laba su'aalood baan weydiinay ugu dambeystii yaanad mid tala waa tala aad bixin doonto waxa la kala yeelay dadkii islimka la yahay iyo siday kuula muuqato inay tala fiican tahay laakiin tan ka horeysiinay waxa weeye hargeysa waxaad ka soo doortay xilligan ku keenay goormaan si ugu dambeysay hargeysa waxa igu dambeysay markii asana ay soo gashay ayaan anigu imid marka Abdurrahman Tuur iyo ayaan is aragnay waana maaragtay hada markaasaan magaalada arkay waa dhex maray baabuurta isoo horta soo fiirfiiri أنا كل هاي هيروشيما إلى أكاتي ماشي نوكلير كلو لفتوها لو لفتي ورايكم كلهم يركوا لفتي تا تيبيكال سيدي كل هي إلى مواتي هالشيء قرأت مقالة أوليسي هو يقول دم بيس ده يدو مقالة عركاز مرسى يقول دم بيس مركا عسلا وجيستين هو دولة محمد سيد أساس ويا marka aad ka soo marka iska kormeer baad hayd mise maya faati waxay markii ay soo rogaal celiyeen nimankii Kismaayo u qahay oo jeerteenkii daaroodka wali meeshii aan fadhiyay aniga
waxaan ka shaqaynaynay si uun dadka la isugu soo celiyo markaasaa waxay diideen nimankii kismaayaa diiday xoog baan ku tegaynaa guryaheennana laka soo saar xoog baan ku tegaynaa aad bay u qaldanaayeen aad iyo aad waana ku baaba'een anigu taas ma wadan waxaan rabay in wixii la isku soo halkana timi wad eegtay halka markii dagaalkii la horaan uu noqday nooc rasaasaha naga dhamaatay halkaan imid alaabtaasaan qaaday abdiraxmaantuuriyo maaragtay alaabtaasaan daldalayay oo halkan ku ogeyd oon halka ku ogaa iyaguna waa nimankanuna cabdiraxmaan iyana waxa yidhahdeen intii cigaal joogayna mar baa timi adiyo cabdiqaasim baa yimid waa mar ma ahayna 3 goor baa nimid maxaad timaatay maxaad doonaysa midnimada raadinayeen waay hadda midnimadeena waad u jeedaa weli meeshay taagan tahay iminka maxaa soo dood iminka laba walxaad baa u imid waay ama aan 3 ku dhaho waa marka horeysa horta Hiroshima inaan mar kale arko say u taalo waa rabay sida magaaladii la burburiyay baadii loo galay bal siday noqotay waa rabay alxamdulillah waa weynaatay waa dhisantay waa kana laba problema yar ay qabtaa biyo iyo wadooyin labadaas ay qabtaa haba biyo waa soo socdaan la igu yiri ma qarnay waxay tahay labadaas haday xaliso it's okay waa magaalo weyn oo xasimada laakiin labadaas intay taagan yihiin waxba kala dhiman taas mid ay ahayd midda labaadna waxay ahayd gabar aan dhalay halka lagu guursaday intaasna inaan arooskeeda timaa ka qayb galo cidna iska aragteen xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda midka meesha u sarreysay tagay madaxweynaha saragna waay daraad baan u tagay hal lagu xidhi waay ma aniga halkan fiiri adinkan intii naanu jirin ayaan anigu reer Hargeysa ah waa leega yaqaan inta kalena hada kulliba waa la ogyahay inaan haatan anigu marna ana meesha xumaanteeda ka shaqeyn iyo dagaalkeeda al contrario maaragtay maxamed sayid waxyaalaha oo buulka ii galiyay waxa kamid ah dareenkii aan qabay oo halka ka qabay waxaan macnaha soo caan baxay dareenkaas soo caan baxay guddiga la qaybiyo la yiri arrinta waqooyi ka wada hadla sidii laga yeeli lahaa waxa baarlamaanka waa guddigaas waxa madax noo ahaa maxamed buraale ismaaciil oo nin sharaf leh waxa nagula jiray adiga halkan waxaa ku jiray mid la dhahay Cabdiraxmaan Jaamac oo aan maleynaa inuu ciidan gala iyo mid la dhahay Ilkaasi oo dan wadaaga ka shaqay jiro Arab Miyaan oo soo iyo mid Ash'ari ma la dhahay Ash'ari dibay ya ma taqeenay والله my god الله الحريم kuwaas horta isaaq uga jiray waxa kale wax dhinaca kala jooga Jangoan bilada yara Maxamed Hebel Shimbirlaayo ma jeerteen oo Maxamed Hebel Barra la yiraahdaa hadda waa jooga oo wasiir ku xigeenka maaliyadda markaas ahaa iyo annaga xagga waxa ka socda aniga iyo Abuukar Xasan mid la dhahayo generaal iyo maaragtay labadaasaan xusuustaa ayami yar maxamed xarako waa la dhihi jir kuwiisa si jiro kamid ah dadkan biimaalka jireerta ayuu ahaa waay markii loo fariistay dagaalkii ayaa guddigana la fariisiyay anigu waxaan war meeshan military waa lagu dayay faa'iidana lagama keenin waxaatan cusub imaanaya ma jiraan baasha intaan ka dayno militariga iyo dagaalka aan hal u raadino siyaasadeed oo lala hadlo dadka lala hadlo
oo SNM wixii lala hadli karo oo u soo joogsanaya fikradda lala hadlo odayaalkii salaadiintii iyo wixii kala joogayna lala hadlo baasha dhinaca kale loo rogo militarigana ha laga saaree dad kaloo raydo oo dhinacan ka socda hala hadlo dadka cirkaasaa loo Morgan iyo waxaan ka dheera Changoni haye rag cusub baa soo baxay annaga shaqadooda naqa yarkii xarako waa igu raacay bas inta kala shibaa yira hadda kuwa saaqa ma bahadli karinba maaragtay waa maalintii ka dambaysa uu ii yeeray kaasoo yiri haddee adigu ma ka dhaadhici kartaa isaaq hadalka aad sheegaysid hadda ma lagu dayaan horta bal ka dhaadhicin ma lagu dayay geela waraf ma lagu dayo colka waraf ma lagu dayo yiri ma lagu dayay ila hadda samxaan ka keenayna markaasna berri oo kale waxa la yiri Hargeysa la tago gudigaan laftiisu ha tago soo arko waxaan ka soo arkay waa diidaan ma soo baxay raaxay waxaan geynay Mexico baan aaday iyo halkaas oo parliamentary union iyo wax kala galay arrintaas horta sidaas ay ku dhacday haddii lagu shareero si sheeg baa la yiri midaan dardaaran maxaad ku talin lahayd maanta Soomaaliland waa aragtaa waa dawlad calankeedii waxeeda leh qodobad ka tibay xamarna halka isla marayso wada ogtayadu maxaad kala oran lahayd sida aqligeed oran lahayd hal lagu shaqeeyo maanta horta maxaa la kala yeelo anigu su'aasha jawaabteeda waxaan u soo qaadanayaa hadal oo cigaal yiri waagaan u imaan jirnay hadal oo cigaal yiri ayaan u soo qaadanayaa Allah u naxariistay halkaan ugu nimid aniga ninkaas aad kala sheegtay Cabdiqaasim dhowr maalmood asuna nimid maanta qadan idin soomaanayaa buu yiri haye qadadii yaa la tagnay waxa fadhiya oo u yeeray wadaadkii hebel madar la lahaayo guurtida madaxda oo asa wadaadkii asa waa joogaa Cabdi Waraabe waa joogaa Silaanyaha madaxweynaha oo markaas wasiir ah waa joogaa intan ka xusuusta weey ma ogtahay mid Cabdullaahi aduu ragaasa joogay oo foreign ministerka uu ahaa cigaal Cabdullaahi Maxamed Ducaale kaas waa joogaa marka uu hadlay ninka la yiraahdo cigaal wuxuu labadan nin ma u jeedaan waa hebel iyo hebel ana iskuna family oo habar gidro cayra oo kala yaqaan dadka nin wuxuu yiri midnimay daba taagan yihiin haddii laga dad badan oo ka samray labadan waa samray la aadaha wali laakiin waxaan idin sheegayaa qoonkan reer Hargeysan oo odayaalkan mid baan idin leeyahay wiilashan labadan nin oo ordaysana mid baan leeyahay kuwa isaaqan ku soo jeesanaya wuxuu yiri wadkayga sidaan u hubo ayaan u huba in Soomaali mar isku soo noqonayso nimayo bahasha haadana ka sii ridanina labadii nin wiil waxaan idin leeyahay war meeshan halaag baa ka dhacay dadkan waa la baabiyay waad ogtiin waa ognaanir boqolkiiba 200 dhiigii baa wali dareerayo yiri dhaawacii baa oradka inta joojisaan horta bal nimankan dhiigu ha ka joogsado goobaha hadhayman magaaladan aad u jeedaan ha dhisanto dadku maaragtay jiil cusub ha soo baxo fikrad cusub ha soo baxo dadkan waa isdhex socdaa garanaysa si kastoo la yeelay lama kala furfuri karee wadciga suga ha ku hor ordinine annagu waa qaadan adiga jawaabtay aan ku siinay waa tii cigaal
muqdisho maxaad ka samaysay maxaadee halkan ha waa la dhisay waa saas dowlad baa loo sameeyey golayaal baa loo sameeyey waa la waa hagaajiyey saas weli aad waa saryeynaysaa waxa weeye meeshan maxaad wax uga qaban weyday adig iyo ragga la midkii adiyo cabdiqaasim oo isna madaxweyne ka noqday iyo nimankii nin reer hebesha sheeganaya maxaad u dejin weydeen koonfur ee dadkii u dejin weydeen ee meel loogu soo hagaaga looga laayahay ama ha wada hadleen oo labadii ha isku noqdeen ama ha kala waxaysmeedne so tii ma sii kala wadaan oo iminka 6 dal iyo 7 dal iyo 8 dal ma sii kala marayso meelay quustu xaggiina ka jirin maxaa qolada masaakiinta u sheeganaysaa maxraba uma sheegano mana maalintu joogsada yariyaan joogsanay kowdhi haddii haata faragelin karaana ma jirtay waa taas waa socotaa waxa oo ka maqan aqoonsigay maxaa waa aqoonsan laadi aqoonsigu maalin buu dad wax isu tihiin maalin buu ficnaa aqoonsigu maalin buu suuragal ahaa waa maalinta xorriyada la qaadanayo diideen inta laba dowlad la noqdo lees aqoonsado markaas iyadoo lees aqoonsanaya la isku biiro yaaci weliba saasaa laydin kula teliyo lixdankii ya 60kii ilma adeeryaalow baasha dhisa dowlad noqda aqoonsi hela annaga idin aqoonsanaya 2 wadan baa aqoonsaday 4 maalmood ay jirtay horta run miya ha ayuusho ha wallahi yaa kamid ah waxa kamid ah ruush waxa kamid ah ingiriis okay waa record enough marka waxa weeye maalintaas ay haboonayd maalintaas ayay haboonayd in inta in yar la kala xasilo dowlad halka si fiican looga dhiso lees aqoonsado la rabitaankiina waa jiro ma baaba'ayo ma baaba'een markaas iyadoo la isku daray haddaan maxay ahayd eeg Somali Republic baa la baxay moogta haddaanay laba qolo ahayn haddaan qolo qabsatay baa maya qola qabsata ma ahayn waxa la qabsashay mana jirin mana suuroobay haddana ma suuroobayso garanaysaa marka waxa weeye waa met qaabkii baasha loo farsamayn lahaa ayaa un baa laga hadlayay moogay wax kale ma jirin qaabkii farsamada ciladaha jirayo hadde maaragtay laba luuq oo balaayaha kala haysato laba system baa jirayo war wixii la isla furdaamiyo inta la is aqoonsado oo marka la is aqoonsado xataa la isku biiro oo si fiican loo sameeyo ninkii ra'iisul wasaaraha ahayo ma dhicin adinkuna waa ka degdegtay tali imika tali waa talo odaynimadan sheegay labadaba siiyo ma dhahayo Somaliland gaarkeeda ha u go'do kala go'aniga ma ogoli haatan ma lacag siisan isku jir haddana isugad mushaar ma siisan waxa ay wadaan dhan wax kale ma aha waa jacaylka dadka aan rabo ilaahay inuu isku dhex jiro oo wada socdo muraad kale oo leeyahay aniga nin mushaar siiyay nina maarka sadana waa lagu siiyay waa lagu tababaray ciidan baa laga dhigay sanan baad ka noqotay cashuurtii waddanka ku noqotay xaq baa lagu leeyahay talo iyo tusaale bayna talada qoloba siiso talada waxaan ku leeyahay horta xagga waxa ba iyo hooga waxa ku dhigay ba iyo hooga waxa ku dhigay waxay diid dibay dishe idiga dilay hada consequence-dii ayaa jirto jiitamaysa maxamed saad barama iloodeen ya waxaan ku sameynaa haduu cararay fiiri geeskii aan ka joognay geeskeedii kale uu cararay halkaas uu ku dhinto ku indha beelay idas anaaf ku dhinto kii kale idiga dilay kee hada kii diiday kii ina adeerkiisa dilay beedi habar gidir maaha nin sacada dilay waay soo taliyo maxaa tala حاجة أول منها من دهية عقل منها يري عقد دقة بل ماشي أنا حاسس الشيء أذيك حين اللي عقد دقة ماشي صح حاسس الشيء مركا حاجة أنا يقولنا حاجة لا أولي بدأ وين كذا كيف قال بدي شرتين وضيالك صراع دين تا وحيل هذا أنك هوية حقلينا أنك أطلعنا هنا أنك طبتك صارقا هل كان مهم الذي ولي نك اللي دهية ريالي ninkaas gaashaanka ku dhiftay ayaal annaga markaan u imaanaynay wuxuu dabcay inuu wadankii sidiisii ku soo celiyo wuxuu yiri hortaas waa kan dhahaya maaragtay agta loo dhigo kuwan ha xasireene
xagga u jeestay wuxuu yidhi marka hore hawiyaan heshiisiinaya marka hawiye heshiisiya hawiye iyo daaroodaan heshiisiinaya hawiye iyo daarood markaan heshiisiya labadooda wada socda ayaan isaaq u keenaya inay u hoydaan oo la heshiiyaan xaggee u ka bilaabay wuxuu yidhi ii keena madaxda hawiye ii soo sheega anaa casuumaya anaa soo maalintaasaan galnay maalintaasaan ogaaday wax la yidhahdo 6 hawiye inay jiraanba maalintaasaan ogaaday min 10 baan ka soo qaadnay Etoobiyadaan ka wadnay oo niman salaadiina iyo waxaas oo dhan way isu geynay 6 nin bay noqdeen min 10 waa soo fakas gareyn way isu doorteen nin la dhihi jiray Axmed Raagi oo gobornatoor xamar warka ahaa jiray oo cigaal ay saaxiib ahaayeen war Axmed Raagi ku jira war asoo gobornatoor war ka dhigo isagoo afkiisa uga yiri $10,000 way dhig wuxuu ku soo daldal dadka anigu yidhi aniga diyaar markuu ahaa oo ayaa xagga laga casuumay Washington meelahaas adigoo tagiyo oo niman baa casuumay 120 oo isaaq ah waa ku dilaynaa hay dheen haddaad rabtaa inaad hawiye iyo balaayada si inagu celiso waa ku dilaynaa wixii ku dili lahaana ciidankaagay ka mid yihiin ku ilaaliya carar mar dambe wiilashaas de markaas oo isaguna ninkaan cabsan waa loo cabsadaa oo lagu dilaya nin la yiri awal waxaan ku heshiinay teendhadii laga dhisay meesha xuma lagu yiraahdo arta laga dhisay in sheekh laga dhiso isaga keenay saasa duulisi ya sheekh laga samay ayuu go'aamiyay waana isku afgaran sheekh laga sheekh maxaad xurataan ila madaxweyne wuxuu saddexda qabiil oo waaweyn ayay u dhaxaysaa mid walba meel marka waxaan leeyahay intaas dadkaas saddexdaas qabiilay marti u yihiin حتى لا يمكن جنرال وكوش كوسا داوية حاجات يدوين يا هلا داوية لبا مركب صعب ما كي داوبان إلى أغاص بحيان إيه لا لقوه شيء يوم لقوه شيء أدي أضبط مع سلطة جلال محمد بن طلال دالي بدل ما كان شيء وحن ما نعرفك أجمل تجيب أضبط مع سلطة ما واحد يدمن 10 دقيقة بيرها وحيالها أنا إيمد واحد كمدة هذيك ميد أون بدي ويدي نلا ديشر سمنتر أيام ننتي حمر baa laga soo meeshii Washington baa laga soo qaaday xamar baa la keenay waxa la yiri waa geesigii qaranka hero national hero garanaysa oo ka sheekeeyeen kuwa saraakiilha meeshii inta la soo fariisay waxa la wixii ogayaan la arag ay waxay ka sheekeeyeen aqoontiisii iyo geesinimadiisii xaggee geesinimadii لا إله إلا الله ما هو يغني واحد هيرو ولا غير ماشي حرونتي حوق دالك الواس نكال حسن الشيخ اللي يرادا وطا غريسا نصارو انه ما انا كليه انه ما ركتي بين بونبونيناي وبين بونبوري وحو كتعدي وميل اوغا دحاي dadkii oo ninkaas dhibaateeyay intuu habweynaatay ayuu meel uga dhacay ninkaasaan rabay inaan taariikhdiisa ka sheekeeyo iyo wuxuu ahaa iyo wuxuu noqday iyo sidoo ah waaniga ku sheegay ninka qaranka duubiyay anaga qaranka duubiyay garanaysa intaas way kamid bahayd soo ma haddana waa kuntu kamid bahayd ina dadkan tilaa inkii idin laayay inaanu abtiriyo asaas oo ah ninkaanu in hero laga dhigay la ilaaha xal bardi ka sii leedahay way aad bad ma santay jano again inta waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii dheeraa ee taxanaha aanu ka dhignay ee aanu ka wareysanay General Maxamed Nuur Galaal oo Muqdisho nooga yimi oo noo keenay barnaamijka gaarka ah inuu nooga waramo hawlihii kale uu halkan u yimidna ka sheekeeyay oo aanu isagana aad uga mahad celinayno intaynu mar kale
halkan ka kulmi doono aniga iyo cabdirasaaq daawus farsamo yaqaankaygu waxaanu idin leenahay nabadgelyo nabadgelyo nabadiino